Hello, asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Kusoo dhawaada. Cashirkan waa cashir bilow ah aan ugu talagalay dadka bilowga Excel doonaya hadda inay bartaan. Waa cashirkii koowaad. Waxaan rabaa xoogaa yaroo inaan yar dul istaago Excel. Waxaan filayaa qof walba inuu furan karo Excel, dhinacu doono kasoo furan karo, halkaa kasoo furan karo, desktopkana ka furan karo. Marka taasi ma aha wax dhib aan filayaa. Marka halkan aanu hadda joogno waxa weeye Excel baa ii furan. Shaashadan ii furan waxa weeyaan bogga koowaad ee Excel hadda ii furan. Bogga magaciisa halkaas halkan aad ka arki kartaa, waxaa ku qoran sheet 1. waa bogga koowaad camal. Marka haddii aan rabo inaan bog kale ku darsado, waxa weeyaan halkan aan taabanaya, balaaska saan tuujinayaa, mid kale ku darsamaysa waxay noqonaysaa sheet 2. intaan doonaan ku darsani karaa. Marka waxna waan ka bedeli karaa, waan kala hormarin karaa. sheetkan hadda koowaad, boggan koowaad, dhinacan waan marin karaa oo dhab baan siinaa, mooskaygaan ku dhegayaa, halkan aan keenayaa, gadaalaan ka marinaa. waa kaa sheetkii koowaad halkan uu soo maray, kii labaad hadda u horeeya. kanaan qaadi karaa, dhabaan siinayaa, mooskaygaan ku dhegayaa, halkaasaan geynayaa, dhinaca kale saas oo kala hormaraya. So intaas waan samayn karaa. waxaa kaloo samayn kartaa, magacaad ka bedeli kartaa. kan koowaad oo kale right click aad haysaa, mooskaaga halkan joogo, right click ayaad leedahay, rename ayaad tegaysaa. markaasaad ku qoranaysaa tusaale ahaan wuxuu adiga markaa aad doonayso, lesson 1 aan dhaho aniga, halkaasaan isaga dhufanaya. kanna sidoo kale iyadana lesson 2 ayaan isaga qoranayaa. waxun adigu aad doontaad ku qoran kartaa. halkanna lesson 3 ayaan isaga qorani karaa. marka waxaa kaloo samayn kartaa, color aad u yeeli kartaa. right click ayaad dhahaysaa, halkan maxaa ku qoran tab color. tab color kan oo kale halkan anigu gaduudan ka dhigto, kanna waxaan ka dhiganaa aan ka dhigto ka right click ma dhahaysaa, halkan maad la soo baxaysaa, colorka doontaad ka dhiganaysaa. sidan ayaana maxay ahayd sida rasmiga ah. markaad sidan oo kale ka dhigto oo intaasoo tab, marka waxaa la dhahaa tab 1, tab 2, tab 3. marka qofka wax kuusoo diraya isagoo weyn waxaa laga yaabaa boggan bogga koowaad bog inuu waxba ku qoran, kan markaad taabato wax kalaa ku qoran, kanna waxba ku qoran. marka iyadoo dhan waxaa laisku dhahaa marka workbook aa laisku dhahaa, laakiin hasha xaba sheet baa la dhahaa, one sheet waay. laakiin marka kulli sidan oo kale uu yahay, sida boggi oo kale, bogga koowaad, bog kale, bog kalaad uu yahay, workbook aa la dhahaa. marka qof baa marka intuu kuusoo diro boggan oo idil ku dhihi karaa informationka aad doonayso waxaad ka heli kartaa tab 2. tab 2 marka waa sheet 2 camal laga wadaa halkaas weeyaan, ama tab 3 waxaad noqdo. marka had iyo jeer haddii intana sidan oo kale aad samayso ilaa halka ay ku taxan yihiin, sidan inaad u magacaabto, kalarada u samaysa ayaa sida rasmiga ah. waxaa kaloo samayn kartaa, waad qarini kartaa. oo hadda lesson 1 kan sheetkan oo idil baan qarini karaa. waxaan dhahay right click, halkan aan taabanaya hide. markaan dhaho way ku daynaysaa, ma arkaysid, ka qarsoon tahay. waad qarini kartaa sheetka. marka haddii aad rabtid inaad soo bixiso stii hadda, waxaad leedahay isla meeshii aad mid iska dul tegaysaa, meelahan ma iska dul tegaysaa, right click aad leedahay, ama hadaad rabtid inaad tegaysaa right click, meelun baad right click dhihi. halkan waxaa ku qoran unhide. marka hore hide aad waad qarisay, haddana unhide waa soo saar camal weeyaan, waa soo saaraysaa. marka qaabkaasi kusoo baxaysaa. halkan maxaa ku qoran, halkan ay kusoo taxmayaan waxaa kuu qoran dhan. marka intaan halkaa tegin mid kale aan qarinayaa si aan idin tusiyo. tan aan qariyo, hide laba xaba hadda qariyay. marka waxaan sameynayaa right click ayaan leeyahay, unhide markaan dhaho, labadii midka aan raba inaan soo bixina. hadda tan koowaad uu ii saaran yahay, tan labaad marka hore soo saaraya, marka way soo laabatay. kan kale sidoo kale unhide aan haddana kaas koowaad ii saaran tahay, kaasaan soo saaraya. so halkaan kusoo celinaya. intaasoo shay ayaad ku samayn kartaa marka shiidadkan. intaa ka sokow Excel markaad fiiriso waa boxyadan godadkan fiiri, qaarna waa joog qaarna waa jiif. markaa sidaa u taabto, qaar jiif way saas u jiifaan, qaarna muxuu ahaa saas ay u joogaan. kuwa joog waxaa la dhahaa columns aa la dhahaa.
kuwan kalena rose-kana waxaa la dhahaa, kuwa jiifkana waxaa la dhahaa rose. Okay, rose aa la dhahaa. marka column-ka xagga sare waxaa kaga yaala xarfaha kaga taxan, xarfahan ilaa halkaas ilaa intaas way sii badan yihiin. marka column-kana haddaan taabto kan xagga sare madaxiisa waxaa ku yaala xaraf, kan sidoo kale xaraf, kan sidoo kale xaraf. rose-kana sidoo kale lambaraa xaggan ka taxan, okay, lambaraa madaxa kaga yaalo. marka xarfahaas waxaa la dhahaa row headings ayaa la dhahaa, kuwan row headings. xarfahaas row heading aa la dhahaa, maya waxaa sorry column heading aa la dhahaa, column-yada ay kor kaga yaalaan column headings aa la dhahaa. kuwan waxaa la dhahaa row headings. marka row headings-ka waa lambaro, row maxaa column headings-na waa xarfo. marka waad weyneyn kartaa, haddan sida u fiir waa iska dhuuban yahay, waad aragtaa, waad weyneyn kartaa, waad weyneysan kartaa. sidoo kale qalinka aad halkan saaraysaa, markuu balaas madow noqdo, balaasaas madow markuu noqdaa dhab siinaysaa mooskaaga, waa jiidi kartaa dhinaca doonta geysan kartaa, sidana marka ay kugu weynaan kartaa. hadaad magacyo waxaas ku qoran karto, ku qoran karta, marka waad weyneyn kartaa. kana sidoo kale asagana halkan aad qabanaysaa, lana soco meesha la qabanayo waxaa waaye marka rowga markaad weyneynayso row heading-ka agtiisa weeyaan, waa halka xarafta agteeda inaad saartid waa. sidoo kale column heading-ka waa inaad tagtaa, sorry. rowgana sidoo kale row heading-ka waa inaad tagtaa, lambarada dhexdooda inaad tagtaa waaye, ee halka qalinka aad saartaa. rowga aad rabto inaad jiido waa inaad leenka ku hagaajisaa, then aad sidaa usoo jiido. markaas sidaas kugu weyneynaya asagana, waad jiidaysaa intaad dhab siiso. so intaasaad ka bedeli kartaa. okay, perfect. waxaa kaloo jira xaggan marka waxaa ku qoran batoonadan, halkan developer iyo new tab baa ku qoran. kuwan anaa keensaday oo waxaa laga keensadaa optionska laga soo gashadaa, excel option-kana laga soo gashadaa. marka taa mar kale ayaanu baran doonaa insha allah. laakiin hadda halkan ku ekaanayna, waxaan joognaa home. marka home-ka adiga waxaa kugu xiga dabcan insert ayaa kugu xigo, insert kaasaa kugu xiga, then page layout. mid kasta marka waxbaa gudihiisa ku jira, batoon kasta markaa tabada gudihiisa wax badanaa ku jiro. marka hadda aan dhahno tusaale ahaan, shaashadan xoogaa wax yar bay iila egtahay, waxaan rabaa waxaan dhan inaan iska qariyo. waxaan dhan haddaan rabto inaan iska qariyo, shaashada ku yar weynaato, waxaa waye home-kana double click leedahay, dhab 2 jeer aad siinaysaa. 2 jeer markaad weynayso bes ka batoonadaas bes aad rabto inaad ku shaqeyso bes banaan ku yaala, waxa ka dhan kaa qarsoomayaan, shaashada ku yar weynaanaysa. haddaad rabto inaad soo celiso 2 jeer baad click dhehaysaa, haddana marka iska soo noqonaysaa. halkan haddaad fiiriso, waxaa yaalo home. hadda home markaan ku dhufto xaggan fiiri, boxy waaye, fiiri boxkan qalinkeyga, qalinka raac halkaa fiiri, waa box rectangle waaye, waa 4 gees. kan sidoo kale waa 4 gees. halkan clipboard ku qoran, fonta ku qoran intana. kan boxkan asagana waxaa ku qoran alignment. marka box walba wax qaasaa loogaga shaqeeyaa. boxkan oo kale clipboard halkan kaga qoran, waxaa ku yaala gudaheeda ku jira wax allaala wax la koobiyo iyo wax la kaad gareey iyo wax meel lagu bees gareey, wax meel laga bedelo, inta meeshooda laga qaada meel kale la dhigo ay shaqo ku leeyihiin. haddii ay noqoto formatkii, haddii cuttingkii, copygii, pastigii oo base iyo special wax walba gudahan kaga jiro, waa kana waxaas dhan baa ku shaqo ku leeyahay. kan haddaad imaato font waa qoraalku shaqo ku leeyahay. qoraalka ma kalaara ka bedeleysaa, ma weyneyni ma yareynaysaa, oo weyneyn halkana ka weyneyn halkana ka yareynaysaa, border maad gelin rabtaa, underline ma ku sameyn rabtaa, italics ma kari, bold ma kari, waxaan dhan groupkan oo idil waxaa la dhahaa font group, kana clip group, kana sida alignment group. so mid walba group waaye, sidaa oo la soco. tan kale aan doonayo inaan ka hadlo waxa weeyaan highlighting-ka. markaad wax highlight garaynayso, meel baad qalin ku dhufanaysaa. in qalin marka ku dhufto, aniga moosan isticmaalay, mooska ilaa halkaas iska jiidaysaa, midigaa u jiidaysaa, midig. haddaad rabto halkan aan joogo, aan rabo inaan halkan qalinka ii jooga, aan rabo inaan hoos u highlight gareeyo, then dhab maan siinaa, hoosaan u jiidaya. haddaan rabo inaan dhinac u highlight gareeyo, sidaasaan u jiidaya. haddaan rabo bidix inaan kor, sidaas u jiidaysaa. okay, haddaad rabto waxaa isticmaali kartaa arooyada, kan midig xagga midig ujeeda, kan xagga bidix ujeeda, kan sare, kan hoose, iyo waxaad isticmaalaysaa shiftiga. iyagana sidoo kaleeto weeyaan, waad ku highlight gareyn kartaa. shiftigaad qabanaysaa hadba dhinaca aad rabtaad, marka aad ugu wada arowga ama filaarta, tan midig inaad midig u socoto aad rabtad, kan midigaad taabanaysaa. marka waa caynkaas. hadda halkan aan joogno kale, shiftan qabanaya, dhinaca midigtan taabanaya, dhinacaas u soconaya. okay, haddii aan bidix aan u highlight gareeyo, bidix u soconaya. haddaan bidixta, haddaan kor sameeyo, kor u soconaya. hoos haddaana hoos u soconaya. okay, so waad ku highlight gareyn kartaa.
wax kaleeto highlight-ka ku saabsan aan doonaya inaan idin muxuu iyadana aan ka hadlo waxa weeyaan highlight-ka markaad waxyaabaha hadda aan ku isticmaalay sidan oo kale u highlight garaynayso ama aad isticmaalaysid shiftiga iyo falaarada waxa weeyaan godadkan yaad sida iskugu xigaan aad u highlight garaynaysaa macnaha kama boodi kartid taa hadda sidaa u wada waxaa isku xiga kuwa isku xiga ama mid kama boodi karo xagga hoose sidoo kale isku wada xijinaya okay marka waxaa jirtaa mid aad halkan wax ka highlight garayn karta ka boodi karto haddana halkaa wax ka highlight garayn karto taas waxaad isticmaalaysaa control aad taabanaysaa then halkan hadda already waa ii highlight garaysan tahay meel kalean taabanaya oo highlight garaynaya halkan highlight garaynaya halkan highlight garaynaya halkan highlight garaynaya iyadoo halkaasaan weli colorka ka bedeli karaa hal mar aan wal colorka wada gelin karaa maxay ahayd borderan wada gelin karaa kulligood bordergaasaan wada gelin karaa qoraalkeen guduud ka dhigi karaa waxyaaba badan aan ka bedeli karaa marka waxaa waye control hadda intaad hayso control mar haddaad qabato waxaa waaye celsiya ama godad kala fog ayaad ka sameyn kartaa ayaad highlight garayn kartaa macnaha aad wax ka bedeli kartaa okay waxaa kaloo rabay aan idin tusiyo godadkan celsa la dhahaa waa la magacaabaa waxaa lagu magacaabaa column headingyada xarfaha ah dhinaca sare ka xiga iyo lambarada row headingka dhinaca ka xiga hadda tan oo kale waxay noqonaysaa waxay noqonaysaa magaceeda marka la tilmaamayo godkaas marka la tilmaamayo wuxuu noqonayaa b4 macnaha waxa weeyaan xagga sare b ka xigta xagga bidixdana waxaa ka xigta lambar 4 ka xiga marka magaciisa marka la magacaabayo cell referencekiisa wuxuu noqonayaa b4 dhammaan kuwa kalena waa noocaas marka waxaad ku garan kartaa had iyo jeer markaad qalinka dhag ka siiso xarafkina wuu xoogaa hoos baa gelaya wuu madoobaanaya lambarkina wuu madoobaanaya sidoo kale wuu ku tilmaamaya macnaha cellkaas magaciisa ama tilmaamtiisa kuu sheegaya macnaha okay perfect waxaa kaloo rabaa inaan kuu sheego inaan iyaduna ka hadlo godadkan markaad fiiriso waxaa waaye waa afar geesyo ama waxaa la dhaho rectangles inaad rabin laga yaabo waxaa laga inaad rabto maxay ahayd square inay ku noqdaan ama afar jibaaran ma la dhaha adigu tira box isleeg afarta gees ba isleeg inuu ku noqdo ayaad rabtaa saas oo kale haddaad rabto waxaad sameynaysaa halkan aad tegaysaa intaad rabtaa iska highlight garaysana dirbaha ilaa halkaas oo kale iska highlight garaysana waa a ilaa n baan highlight garaysay kadib xaggan sare meeshan xaggaa sare ee row headinga column headingka yaan tegayaa markaasaan right click dhahayaa right click markaan dhaho halkan aan imaanaya column widthkaas markaan imaado tiradaas halkaa ku qoran aan bedelanaya ani tusaalehaan waxaan ka dhiganaya saddex markaan ka dhigto waxa weeyaan way isku imaanayaan wixii dhan halkan uu imaanaya oka waxayna noqdeen waad ujeedaa kolley aan umaleynaya waxay noqdeen macnaha waxay noqdeen boxyo yaryar ay noqdeen kuwan way weynaayeen kuwan fiir wax isla eg ay noqdeen squares isla wada eg ay noqdeen marka haddaad doonayso adiga inaad sidaas ka dhigato waad ka dhigani kartaa waana si quruxsan weeyaan markaad sameynayso timetablada iskuulka ama magacyada oo kaleete halkan oo kaleeto aad magacyada ku qoran kartaa magacyada halkan ku qoranaysaa then maybe halka waxaa leedahay Monday, Tuesday, Wednesday, week iyo waxnaas ka dhiganaysa qaabkaas loo hagaajistaa marka guys that's something interesting weeyaan wanaagsan okay waxaa kaloo rabaa inaan ku tusiyo haddii aad rabto dhammaan shaashadan dhammaanteed inaad mataqaanaa aad wada highlight garayso waxaa xabad waxaa tirooyinka saaid u badan intaasna kun weeyaan marka sidan gacanta manual kuma gaaraysid halkaas ma arkayso halkaas aad la taabto halkaas aad taabanayso hal mar ku highlight garaysmaya then colorka ka wada bedeli kartaa direct marka colorka noocaas aad ka dhigan kartaa ma waxaad doonto adigu aad ka dhigan kartaa halkan aan ka dhiganayaa tusaale ahaan then colorkan aan iska qaadanaya color aan iska qaadani probably color anigu infac markaan qaato then intan oo kaleetaan colorka ka qaadaya kadib then markaasaan aan isticmaalaya saan uu noqonaya marka quruxdaas uu noqonaya marka excel inaad ku baashashaa la rabaa si qumaati ya halkana boxyadii sida hadda oo kaleeto haddaan ka dhigto waxaa weeyaan waxyaaba badanaa lagaa doonaya inaad sameysid maaragta markaad excel isticmaalaysid marka boxka quruxdaas uu noqonaya so intaasna kaa qarsoonta perfect good cashirkeena halkaasaan kusoo gabagabeynaya haddii aad u bogtay cashirkan fadlan like saar bogga wamatech wixii ko faalo iyo tale tusaalena xagga hoose nagu reeb oo comment halkaas hoose nagu qor subscribe na dheh muxuu ahaa boggan insha allah. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.